بسم الله الرحمن الرحيم mahadi daylkeed ilaah baa la naxariis iyo nabadgelyo nabigeena udgoon ee maxamed ah korkiisa ahaato walaalayaal Soomaaliya ee meel walba oo aad ka joogtaan geyigeena Soomaaliyeed iyo daafaha adduunkaba waxaan inigu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa xasan jaamac ibraahim waxaan ku guda jirnaa wali soo bandhigida qaar ka mid ah maasooyinkii Sayyid Maxamed Cabdilla Xasan waxaan maanta maranaynaa gabayga caanka ah ee magaciisu yahay daraawiishta saalixiya sida uu soo wariyay ilaahay naxariis jannaha siiyo qabrigana ha u nuuree aw jaamac Umar Ciise oo ahaa ninkii u tafaxaytay soo ururinta taariikhda daraawiishta guuto daraawiishta kamid ah ayaa u baxday galbeedka geyiga Soomaaliyeed dabadeedna waxay ka soo qaadeen halkaas geel aad u fara badan hase yeeshee markii dhexda ay soo marayeen oo geeli ay u soo wadeen xagga ay xarunta daraawiishta ayaa waxaa ku duushay beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed sida gabayga ka arki doontaan geeli faraha badnaa ee ay wadeen waa laga faramaroojiyay waxaana lagu guray meedkoogii ceelka la yiraahdo afyaraado sayidku markii uu maqlay ragga in la laayay geelan la dhacay ayaa gabaygan daraawiish waxa uu ku gubaabinayaa inay duulan bixiso raggii ay u soo aarto geelina ay soo celiso waxa uu yiri sayidku daraawiishta saalixiyaay doodan ku idhaahdo damiin baan aqoon meelihii loogu duur xuleeye dacwad gabaanayaa iga maqlo ducaasan loo yeelay kuwii dahabka idin dhaafsadee dabaqa loo buuxshay oo daarihiisa xiliyo cadaan u duumaysan aan kula dadba ahayn waryaan deris xigaalmoodin dabatoobka idoori waa idin dagayaaye waa daalin ina shixirigii damanka xumaaye ninkii gaala daawale warhooy dida taaladiisa daryaankii rasaastii markay diniinigtii yeedhay ninkii lagu dareensaday inuu idinka duuflaali dabaraara weeye waryuu dabin idin qoolin dabci lagama guuro berray didii sidoodiiye dogaa inuu sabahayiyo donahaya yimiye dufulahaad arkaysaan warmaan laga digtoonaado dabatada inoo timid hadday darajo soo weyday deeqaynu siinaaba waa inaad dambaabsiine waryaan loo dawarin waayaga doortay gaaladaaye dagaalkii nasaarada kuwa dabaca u qaaday ee inaad duleed sheelahaa diriya daaroodba inta dunida joogtaan waryaan dudsi laga yeelin waryaa duubcadii garaanayo dibu qamuuyaysan waryaa daabaduu fuuli jiray daraab ka saaraya waryaa duhuurka maanta tolow ilaa dareeraayo reer dalaal waryaa doonayo dullan bixinaya dadiyo duunyo yaa reer subayr damuu ka siinaya yaa diinta eebiyo sharciga diriiray oo raaceen dekaankii maqnaayaa lahaa sow la daymaayo sawdana badeeni la dilay lo dubnixi maayo ma dameer la raray baynu nahay didiiba sowmayno yaydani ka haysaa raggii dollo lagu laayay nimankii deldelay waa firsow loogu dudi maayo
dudihii xirsi ahaa miyaan loo danqaanahaynin sawdegaha haaruun madegin ceelkii daratoole dannood sow guraasiyo iljeex dero kuma foofin sow daahirkii aw cabbaas dayn kuma qanmaaho dayrtiyo diraacdaba miyaan lays dultaagaynin dunjigiis ogaadeen miyaan diiq la gelinaynin dooyada miyaan lagu simayn adaaridaanteeda dooxanaha tiir kale miyaan dhika da'ahaynin waraabaha daloombi miyaan dariib la siinaynin miyaa lagu dabraynin raagi waa ki dadaal badane maxaa loo dingiga maxaa dadaabta loo seexan dugsiyada maxaa loo hurdaa dacaaska qaadooyin sow kumaad edootaan ilmada diliiliqlaynayso waryaa dumarka aad guursateen sow dumaal maaha daa'imaan agoomeedna sow daha kama buuxdo sow kumaad edootaan ilmada diliiliqlaynayso dunjada la soo naqaahayiyo danaafna loo keenay iyagaaba diifta an qabo iga sii daraane waryaasow dubaaqadda galbeed idiima doogeyso waryaasow dariiqada run iyo daacad kuma joogno sow daraajo aakhiro waxaa loo digrii maaha waryaa maa dareentaan ilaah deeqi waa badane waryaan sidaa dugaagii ilaah dorin dhogortiine daanyeer sidiisyaan ilaah idiin daldaaliyeyne waryaa maad isdooxdaan cadhaa lala dilaacaye